بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaynu wax ka tilmaami doonaa asbaabta keenta al-amn wal-istiqraar, nabadgelyada iyo xasiloonida. nabadgelyada iyo xasiloonidu waxay ka mid yihiin nolosha waxyaabaha ugu qiimaha badan leh. walidalik baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa in dhowr iyo 10 meelood ka badan dadka ama saalixiinta ama awliyadiisa ama aakhira u abaal marinayo laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilahay ku sifaynaya badan. laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun, kuwa cabsanaya ma aha oo cabsiyo korkooda ma ahaanin, mana tiiraanyoonayaan. cabsida iyo tiiraanyadu nolosha cidhiidhi bay geliyaan, waana dhib bini aadamka ku dhaca, waana waxyaabaha maqaasid shariica ay culammadu yidhaahdaan ay u yimaadeen oo dhan, inuu qofku nabad u helo diintiisa, caqligiisa, naftiisa, maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa, iyo maqaasid shariica alkhamsa aw sita ay culammadu tilmaamaan oo ah danta diintaba loo soo rogay. 5 shay ama 6 shay inay diintu ilaaliso. sida awgeed waxaynu ku tilmaamaynaa inay tahay waxyaabaha noloshu aanay marnaba ka maarmin. adduunkan aynu joogno xadaaradiisa iyo horumarkiisa ay sheegaanna waxay dhahdaan sullam alxadaara, sallaanka loo fuulo bay dhahdaan xadaarida iyo horumarku waa al-amn wal-istiqraar siyaasi bay iyagu ku tilmaamaan. waa nabadgeliyo iyo deganaanshiyo siyaasadeed bay dhahdaan. dib u dhaca iyo takhallufka iyo jabkuna wuxuu ka yimaadaa bay dhahdaan al-iddiraabaat wal-khawf, dadka oo cabsi ku beeranto ama nidaamkooda siyaasigoo degi waaya iyo wixii la halmaalaa waxay bini aadamka ku keenaan dib u socodnimo. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yaa bani aadama imaa yaأtiyannakum rusulu minkum yaqusuuna calaykum aayaatii faman itaqaa waaslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. reer bani aadamow baa ilaahay leeyay subxaanahu wa tacaala, haddii xaggayga idinka yimaadaan rusushaasoo yaqusuuna calaykum aayaatii, idinku dul akhrinayo idinka warramaya aniga aayaadkayga iyo waxyigii alle subxaana wa tacaala, dug kuwaas idin yimaadaan. yacni waxyigu markuu idin yimaado, ilaahay diintiisu hadday idin soo gaadho, labadan shay ciddii samaysa baa layidhi faman ittaqaa wa aslax, ciddii alla ka cabsi laga helo oo wa aslax wax hagaajisa, falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun baa ilaahay leeyay. falaa khawfun calayhim, cabsiyo korkooda ma ahaanin oo ka cabsan maayaan mustaqbalka iyo waxa soo socda, walaa hum yaxzanuun, tiiraanyoonna maayaan oo wixii tegayna ka tiiraanyoon maayaan. waxay dhahdaan bini aadamku nabadgelyada uu u baahan yahay waa 2 qaybood bay dhahdaan. midi waxa lagu tilmaamaa inuu yahay nabadgelyo daakhiliya, gudaa ah. midna waxaa la yidhahdaa nabadgelyo khaarijiya, dabadda ah.
mid waa nabadgelyo gudaha ah oo waxa lagu tilmaamaa inuu qofka bini aadamka ahi caqiida ahaan xasiloon yahay, cabsi aanu qabin, naf ahaan aanu warwariyo walbahaarhayn, deganaanshiye uu qabo. taasi waa min annafs, gudahay ka timaadaa. midina waa tu dabadeed oo waxa weeyaan cid aad ka cabsanayso oo kugu soo duulaysa ama dhib ku haysato dabad kaaga imanaysa inaanay jirin. labadaa midnaba inaanay jirin. labada tan haddaba asbaab bay ku xidhan yihiin. ta daakhiliga ah ama guduhu waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labadaba isagoo ka warramaya: man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yawmi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. ninka waa bariista aaminan fii sirbi isagoo ku nabad qaba tolkii iyo ehelkii iyo dadkiisii, waddankiisii, ummaddiisii dhex joogoo nabad qaba, aan cidna ka cabsanaynin, caafimaad dabadeed qaba, jidhkiisu caafimaad qabo, amni sixiya yacni haysta, cindahu quutu yawmi, amni ghadaa'iya haysta, nolosha aan warwar kaga jirine wuxuu liqo helaya. kaa dunidu way ku soo ururtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ninkani nabad buu dareemayaa, cid ka cabsan maayo, aan alla ahayn subxaana wa tacaala, naftiisu waa xasiloon tahay, isla markaana waa caafimaad qabaa, waxuu cunana wuu helayaa. kaa adduunyadaa ku soo ururtay buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. haddaba culammadu waxay yidhaahdaan ta gudaha ah si gaaraynu u tilmaamay, ta dabaddaana si gaaraynu u tilmaamnay. ta dabadda ahi waxay yidhahdaan waa bini aadamka macdalaadka ugu waaweyne taariikhda bini aadamka soo marayba. almacdala alijtimaaciya, macdala alijtimaaci siyaasi bay yidhahdaan. dhibta deganaanshiyaha siyaasadeed ee nolosha bini aadamku fii kulli zaman